السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد عاوية جنال iyo barnaamijkii aqoon maal maanta waxaan idin soo gudbin doonaa hadduu alla raali ka noqdo cashirkii 6aad ee maadada fiisigiska gaar ahaan fasalka 12aad cutubkiisa koowaad. cashirkeena maanta wuxuu ku saabsanaa doonaa acceleration in simple harmonic motion. acceleration in simple harmonic motion karaarka kaas oo leedahay walax ku socoto socod isku dib dhac fudud. simple harmonic motion. An object moves with simple harmonic motion whenever its acceleration is proportional to its position and is oppositely directed to displacement from equilibrium position. An object moves with simple harmonic motion walaxdu waxay ku socod doontaa socod isku dib dhac fudud whenever its acceleration mar walbo karaarkeedu is proportional to its position uu saami leeyahay heerka walaxda ay gaari doonto and oppositely directed to displacement mar la hadlay barbaxna way ka soo horjeedaa from equilibrium position marka laga imaado barta nagaashaha. The acceleration of simple harmonic motion is zero at equilibrium position walaxda markay taagantahay barta nagaashaha acceleration keedu wuxuu noqon doonaa zero sababtoo ah walaxda waa mid taagan oo aan dhaqaaqaynin. sidaan naqaan equilibrium position waxa uu naqaanaa waa barta walaxda ay ka soo dhaqaaqday ama marka koowaad ay taagnayd maxaa loo yaqaanaa equilibrium position. The acceleration of simple harmonic motion is maximum walaxda karaarka ay ku socoto markay taas socod isku dib dhac fudud waxay taagan tahay meesha ugu sareyso marka walaxda ay gaarto amplitude position barta ah ama qotinka markay gaarto. amplitude position means maximum displacement. acceleration in simple harmonic motion karaarka kaas oo leeyahay walax ku socoto socod isku dib dhac fudud. An object moves with simple harmonic motion walaxdu waxay ku socod doontaa socod isku dib dhac fudud whenever its acceleration mar walbo karaarkeedu proportional uu saami leeyahay to its position heerka walaxda ay gaari doonto oo haddii karaarka uu bato walaxda meesha ay gaarayso wuu bado doonaa haddii karaarka uu yiraadone walaxda meesha ay gaarayso wuu yiraad doonaa. An oppositely directed to the displacement barbaxna way iska soo horjeedaan oo haddii barbax uu right yahay wuxuu noqon doontaa left haddii left uu yahay wuxuu noqon doonaa right. The acceleration of simple harmonic motion markaan ka hadlayno karaarka walax ku socod isku dib dhac fudud is zero wuxuu noqon doonaa mid eber ah at equilibrium position marka la taagan yahay barta nagaashaha. At equilibrium position is the position when the object is at rest waa walaxda meesha ay ka soo dhaqaaqday. The acceleration of simple harmonic motion is maximum walaxda karaarka ay ku socoto wuxuu noqon doonaa meesha ugu sareyso markay taagan tahay amplitude position. hadda qaacid ahaan u qoran wuxuu noqon doontaa acceleration oo ah karaarka wuxuu proportional direct proportional uu saamigal toos leeyahay displacement barbaxa negative kan wuxuu ku sheegaa opposite direction. acceleration hadduu bato displacement-ga barbaxa uu bado doonaa haddii uu yiraadane waa uu yiraad doonaa kan hadduu yahay left kan wuxuu noqon doonaa right haddii uu yahay right kan wuxuu noqon doonaa left oo mar walba maxay yihiin acceleration is directly proportional to displacement and opposite directed oo acceleration saameynta uu ku leeyahay barbaxa waxay isku mid yihiin restoring force oo aan ku soo hadalnay focus low markaan qaadanaynay. acceleration in simple harmonic motion waxa wali ku jirnaa karaarka walax ku socoto socod isku dhac fudud. acceleration is in the direction of restoring force marka la hadlayo karaarka waxay isku jahayiin xoog noqodka oo markaan fiirno hadda walaxdan moolada waa la jiiday waxa loo jiiday dhankaas iyo midig ayaa loo jiiday right baash meeshan markay taagantahay haddii aan daagno force muxuu noqon doonaa left. acceleration waa sidoo kale acceleration is in the direction of restoring force iyo accelerationka isku jiha waa haddii ay noqdaan right ama left ay noqon doonaan. A is positive when x is negative acceleration ka wadnaahay wuxuu noqon doonaa mid togan haddii x ay tahay mid taban and negative wuxuu noqon doonaa mid taban haddii x ay tahay mid togan oo haddii acceleration ku yahay positive displacement wuxuu noqon doonaa negative haddii acceleration ku negative yahay displacement wuxuu noqon doonaa positive taasna waxay ku xiran tahay jihada haddii right loo socdo displacement wuxuu noqon doonaa positive acceleration kaaga wuxuu noqonayaa negative haddii left loo socdo displacement kaaga wuxuu noqon doonaa negative acceleration kaaga wuxuu noqon doonaa positive oo mar walba maxay isku yihiin opposite directed ay isku yihiin oo ka markaan fiirno hadda x maxay u joogtaa waa positive oo right acceleration kaaga muxuu noqon doonaa marka negative ayuu noqon doonaa oo uu ka soo horjeedaa. kan labaadna sidoo kale hadda displacement kaaga waa negative acceleration kaaga muxuu noqon doonaa positive. therefore mainscan markaan fiirnayno waxay ku sheegaysaa oo kaliya directionka jihada ka hadlaan mar walba saameyn badan mu ku yeelan doonto ka shaqeynta marka walax ka shaqeynaysid.
waxa soo qaadanayna qaacidada force waxaan naqaana formanka waxa ka soo qaadan force waxa lagu helaa mass oo ku dhufsan acceleration waa mass wala cufka walaxda oo lagu dhuftay karaarka haddana maxaan qaadanaa force in lagu helo hukis low minus k x maadaama labadu force ay yihiin ma waxay kulmid tahay minus k x k na u tahay spring constant horena ugu soo hadalnay acceleration mar labaad aan ku celino acceleration karaarka marka ka hadlayno is maximum wuxuu noqon doonaa meesha ugu sareyso at end point waxay isku macno yihiin amplitude oo ah maximum displacement and zero wuxuu noqon doonaa mid ever ah at center of oscillation is same as equilibrium but center of oscillation haddaan maqaso oo macnaha walaxda bartamaheeda iyo equilibrium position wuxuu noqon doonaa isku macno ayuu noqon doonaan simple inta waxaan qaadan doonaa marka acceleration versus displacement muxuu yahay xiriir ka dhexeeya acceleration iyo displacement markaan fiirno hadda inta waxaan marka waa x ay 0 tahay equilibrium position where there is no markaan ay taaganahay at rest position x wuxuu ku mid 0 inta marka u dhaqaaqna waa positive for right marka inta u dhaqaaqna wuxuu noqotay negative sida hore u soo qaadanay markaan displacement-gan dhankan uu yahay velocity displacement-ga waa same direction acceleration wuxuu opposite ku yahay displacement-ga given the spring constant waxa lagu sii marka madoorsoomaha moolada leedahay barbaxa iyo cufka walaxda ay leedahay acceleration waxa ku soo heleynaa marka qaacidada f waxay kulmita ma minus kx hadaan u baahana ml waxa uu qaybin doon inta waxa uu qaybinayna m inta waxa uu qaybinayna m m wuxuu noqon doonaa kuwa isla baxo waxa ku soo marka acceleration wuxuu kulmid yahay minus kx oo loo qaybiyay waxa ogaataa note acceleration is always opposite to displacement oo calaamadan minus maxay ku sheegaysaa in displacement acceleration isku yihiin opposite horna ka soo hadalna hadii acceleration ka uu bato displacement waa u badan doonaa hadii acceleration karaarka uu yiraahdo displacement ga waa uu yiraahdo doonaa sababtoo ah acceleration and displacement are directly proportional and opposite in direction jihahan way iska soo horjeedaan inta waxa qaadan doonaa example keena saddexaad a 2 kilogram mass wala xufkeedu yahay 2 kilogram hangs at the end of spring ee waxa la soo suro dhamaadka moolo whose constant kaasoo madoorsoomaheedu uu yahay 400 newton per meter the mass is displaced walaxdu waxay barbaxday a distance of 12 cm waxay gaad 12 cm and released kadibna waa la sii daay oo walax inta kora lagu soo xiray waa la jiiday ilaa fogaanta la keen waa 12 cm waa la daay hadii la daay walax maxay sameeyay doontaa waa ay noqon doontaa what the acceleration muxuu noqonayaa karaarka at the initial displacement is 7 cm walaxda markay maraysto 7 cm oo walaxda markaan gaarsiin 12 cm hadii la daay muxuu noqon doontaa boos kor u noqon doontaa 12 11 10 9 8 7 markay marayso muxuu yahay karaarka uu ku socdo waxaan la sii markood maxaan haysanaa mass waa 2 kilogram cufka walaxda waxaan haysanaa k oo 400 newton waxaa lagu sii displacement ugu sareysa walaxda ay tagto amplitude-ka 12 cm waxaan lagu diray x marka kulmita 7 cm waxa soo qaadanay acceleration hore maxaa u soo sheegnay acceleration maxaa lagu helaa qaacidadiisa minus kx oo loo qaybiyay m saddexdan waan haysanaa simple acceleration wuxuu kulmid yahay minus kx oo loo qaybiyay m k ku bedel maxaan haysanaa 400 x meeqaan haysanaa 7 cm loo dil markaan 7 cm maxaa u bedelaynaa meter maxaa u qaybinaynaa 100 mass waxaan haysanaa 2 kilogram simple isku qayb marka acceleration wuxuu kulmid yahay negative kan direction bisoo ku sheegaa direct waa ka tagi kartaa 400 oo lagu dhuftay 0.07 inta ka imaatay waa 7 cm oo loo qaybiyay 100 0.07 mass waxaan haysanaa 2 kilogram therefore calculator ka soo qaad 400 waxa ku dhuftay 0.07 waxa uu qaybisaa 2 kilogram maxaa ku soo baxay acceleration ka inuu yahay negative 14 meter per second square hore waxa soo sheegnay hadii acceleration kaaga uu yahay negative sababta keento waxay tahay displacement kaaga muxuu yahay positive hadii displacement kaaga uu ahaa negative acceleration kaaga muxuu noqon lahaa positive oo ameniska mar walba jihaanaysa qad kan displacement wuxuu yahay downward direction acceleration to noqon doona upward direction ayuu noqon doona oo kor ayuu noqon doona had kan meesha down iyo kan muxuu noqon doona kor ayuu noqon doona wuxuu noqon dhaqaaqi doona 14 meter per second square waxa ogaataa marka note when displacement 7 cm markuu yahay balance oo downward direction acceleration wuxuu noqon doonaa upward direction oo ah negative independent of the motion direction jihaan macna kan muxuu noqon marka kan markuu yahay downward direction kan muxuu noqon doonaa upward direction hadii kan uu yahay positive kan muxuu noqon doonaa negative a 2 kilogram mass wala xufkeedu yahay 2 kilogram hangs at the end of spring ee waxa la soo suray dhamaadka moolo whose constant madoorsoomaheedu uu yahay 400 newton per meter
the mass displaced walaxdu waxay barbaxday a distance of 12 cm 12 cm and released waa la sii daay therefore intaas waa intii hore lagu siiyay walaxda 2 kg maaskan waa 2 kg meel kale lagu soo xir waa la jiiday waxa la gaarsiiyay 12 cm waa la sii daay hadii la daay walaxay maxay sameyn doontaa dib ay u noqon doontaa what is acceleration muxuu noqonayaa karaarka at the initial displacement 7 cm walaxay markay 7 cm marayso karaarka ay ku socoto soo sheeg therefore waxaan naqaan acceleration waxa lagu helaa minus kx k waxaan haysanaa 400 x marka laba xabaan haysanaa laakiin kan loo dir maxaa what is the acceleration at 7 cm 7 cm markay tahay 100 u qayb 0.07 waxa u qaybisaa 2 therefore soo soo baxay meter per second square meter iyo meter maxay noqdeen way isla baxeen hore maxaa soo qaaday newton wuxuu kula mid yahay kilogram meter per second square kilogram iyo kilogram maxay noqon doonaan way isla bixi doonaan meesha maxaa ka soo hari doona marka meter per second square minus waxay u noqotay maxay tahay displacement-ga do positive acceleration mar walba wuxuu noqon doonaa negative isla example ka hadda aan ka dhigano example 4 isla example given ka aan haysanay waxa lagu dhahay marka what is the maximum acceleration muxuu noqonayaa karaarka u badan for 2 kg mass in the previous problem kora soo qaadanay muxuu noqonayaa maximum acceleration ka maxay kulminta 12 cm kayn waxay kulminta 400 eedan 12 cm waxa loo qaatay waa maximum displacement walaxay meesha ugu sareysa ee gaartay marka laga hadla acceleration maximum meesha x maxaa ku bedel doona oo kaliya a sababta maadaama aan raadinayna maximum acceleration accuracy when restoring force maximum acceleration wuxuu dhacaa restoring force markuu yahay awoodda meesha ugu badan markuu taagan yahay when the stretch or compression of the spring is largest meesha ugu sareysa walaxda marka la kala jiido ama meesha ugu sareysa oo la gaarsiin marka la isku riixo ama dib compression loo sameeyo labaas meel waxa loo yaqaanaa maximum amplitude ayaan u naqaanaa therefore acceleration kan waxa ku wali doonaa ma waxa ku lamid tahay minus kx maadaama meesha ugu sareysa aan gaarnay x maximum displacement maximum waxa loo yaqaanaa amplitude therefore acceleration kan waxa dhihi doonaa minus ka oo loo qaybiyo m qaacidadan waxa la isticmaalaa marka lagu diro maximum acceleration oo meesha x maximum noqon doontaa waa a therefore k waxaan haysanaa 400 newton per meter waa 12 cm da 100 u qaybino meter saa ugu bedelo 0.12 meter waxa loo qaybiyo 2 kg meter iyo meter waxay noqon isla baxeen newton wuxuu ku lamid yahay kilogram meter per second square kilogram isla baxeen waxa ku saar meter per second square oo kaliya therefore inta isku qeyn waxa ku soo bixi doon maximum acceleration kaaga minus 24 meter per second square sababta minus u noqoto xita displacement-ga duu downward yahay acceleration-ka wuxuu noqon doonaa upward direction aad baad u mahadsantihiin daawashada cashirka aad daawateen si aad noo dhiirigelisaan subscribe dheh channel-ka caawiya channel si asxaab fara badan aad u gaarsiisid share mahadsanid